bismillaahi raxmaani raxiim asxaabteyda quruxda badan waxaa idin leeyahay soo dhawooda waa safiya saaluun maasha allah halka adiga la socotaan waa janalkeyga safiya saaluun maasha allah maalin dhaweed waxaa noo socotay qiso aada u qurux badan qeybtii koowaad waa soo dhageysateen tanna waa qeybtii labaad maasha allah okay asxaabey qisadeeni waxay noo mareysay gabadhii oo micnaha la canaaday oo la garaacay ogaaday waxaa dhacday gabadhii in micnaha wiilkii uu caadeysto mar walba markuu isaga shaqadiisa kasoo baxo oo kasoo maro shaqadeeda oo maasha allah oo micnaha ay isi soo raacaan cabitaan wax uu soo gadgado maasha allah heer markii dambe uu dhaho waxyar gurigeyga kaalay ku yara naso mar walba oo saas la dhahana insha allah maalintii koowaad maalintii labaad maalintii saddexaad haddana waxaa aragtay islaamka loo darisaa waxay ku tiri gabadhiina halka ayay martay adinka iskuul bay aaday laakiin teemka iskuulka laga soo baxo reerka labada reerna waxay ahaayeen laba reer oo aad iyo aada isku dhow oo haddana jiiraan ah okay adi wax ku sheega lama weynaaye waa la sheegay okay gabadhii haddana sacdiyey ahayd waxaa lagu sameeyey cadaadin xoogan waxaa loo garaacay si aada u kulul sacdiyana waxaad moodeysay marba marka ka dambeeya inay wiilkii aada micnaha ula sii qabsanaysay waxay ahayd gabar yar maasha allah waxaana u maleysaa inuu asaga baraayo hadaaqa maasha allah tabaarakallah sacdiyo wiilkii aada iyo aada ugu sii dhawaaneysaa aada iyo aadayd ugu sii dhawaaneysa hadalkiisa ma ahane hadal kalena aan ku qoreynin qalbigeeda gabadhii iyo reed waxaad u maleysaa inuu bayarkii qalbiga ka xadayo haddana micnaha jirka adkaysina u sameyneysa cadaadin walba iyo garaac la garaacaba iyo ku ilaabaysa asaga insha allah sheekadiisaas ayay u socotay gabadhii iyo wiilka aada u sii baratay okay maasha allah tabaarakallah waxaa ugu dambeysay maalin habeen markii maalinta saddexaad waa inay sheegay in gabadhii aada loo cadaadiyey cadaadintiina aysan waxba u arkin maasha allah tabaarakallah waxaa dhacday haddana in micnaha wiilasha ayada la dhashay waxay sacdii waxay ku dhex jiri jirtay walaalaheed inta badan waxay u banaayeen wiilal ay u dhahaan anaka gabadheena gabdho waa naqaanaa gabadhahana gabadha nala dhaltana oo xumaato uma rabno waano iyagoo waaninaya insha allah la soco qeybta saddexaad.